kulan wacan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee taxanaha oo maanta aynu ku soo qaadan doono 10 madaxweyne ee ugu taajirsan qaaradda tan Afrika iyadoo markaasi tirada aynu ka soo bilaabi doono qaybta amaba lambarka 10aad inagoo ku geyn doono ilaa iyo lambarka 1aad oo ah qofka ugu taajirsan ee madaxweynayaasha ama hogaamiyayaasha qaaradda Afrika aan ku bilaabay madaxweynaha kaalinta 10aad ku jira ayaa ah Abdelfattah al-Sisi oo ah hogaamiyaha dalka Egypt waxa uu ku dhashay magaalada Qaahira sanadku markii uu ahaa 1977 madaxweynahaasi ayaa inta badan waxa uu ka soo shaqeeyay siyaasadda wadankaasi muddadiisii ugu badneyd isagoo xilal kala duwan oo sarsareeyana ka soo qabtay xukuumadihii kala duwanaa ee ka jiray dalkaasi Egypt hantidiisa ayaa lagu qiyaasaa in ay gaarayso ilaa 185 milyan oo doolarka Mareykanka ah kaalinta 9aad waxa ku jira hogaamiyaha boqortooyada ee King Mswati III oo isagu ah hogaamiyaha boqortooyada Swaziland oo ka tirsan boqortooyooyinka aan badnayn ee ka jira qaaradda Afrika waxa uu dhashay sanadku markii uu ahaa 1968 arinta ugu cajiibsan ayaa waxa ay tahay in hogaamiyahaasi uu leeyahay ilaa iyo 15 xaas isaga oo markaasi haysta caruur gaaraya ilaa 35 caruur ah waana hogaamiye boqortooyo oo ka taliya Swaziland hantidiisa ayaa lagu qiyaasaa in ay gaarayso ilaa 200 milyan oo doolarka Mareykanka ah madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa ku jira kaalinta 8aad isaga oo dhashay sanadku markii uu ahaa 1946 waxa uu leeyahay 3 caruur ah waxa uu qabtay talada dalka Eritrea kadib gumeystihii dalkaasi ilaa iyo iminkana isaga ayaa ka taliya oo madaxweyne ka ah hantidiisa ayaa lagu qiyaasaa in ay gaarayso ilaa 210 milyan oo doolarka Mareykanka ah kaalinta 7aad waxa ku jira madaxweynaha dalka Koonfur Afrika waa Cyril Ramaphosa isaga oo markaasi haysta hanti gaaraysa ilaa 450 milyan oo doolarka Mareykanka ah waxa uu soo guursaday taariikh ahaan xaasas kala duwan isagoona caruurtiisa ay gaarayaan ilaa iyo 5 caruur ah waxa uu ka soo shaqeeyay siyaasadda dalkaasi in muddo ah isagoona soo qabtay xilal kala duwan hogaamiyaha ku jira kaalinta 6aad ayaa waxa uu yahay Paul Biya oo ah madaxweynaha dalka Cameroon hogaamiyahaasi waa mid inta badan aan la arkin oo dhaqdhaqaaqiisu uu badnayn hantidiisa ayaa lagu qiyaasaa inay gaarayso ilaa 500 milyan taasi oo u dhiganta nus milyan hogaamiyaha ku jira kaalinta 5aad ee madaxweynayaasha ugu taajirsan qaaradda Afrika ayaa waxa uu yahay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo isagu dhashay sanadku markii uu ahaa 1961 oo u dhow xilligii ay xornimada qaadatay dawladda Kenya madaxweyne Kenyatta ayaa xilligii uu dhalanayay waxa uu aabihii ahaa hogaamiye u dhaqdhaqaaqa xornimadoonka dalkani Kenya haatan hantida madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu qiyaasaa in ay gaarayso 500 milyan oo iyaduna ka dhigan nus bilyan madaxweynaha ku jira kaalinta 4aad ee ugu taajirsan dalalka Afrika ayaa noqonaya Paul Kagame oo ah madaxweynaha dalka Rwanda waxa uu dhashay sanadku markii uu ahaa 1957 waxa uu leeyahay 4 caruur ah siyaasad ayuu intiisa badan noloshiisa ka soo shaqeeyay hantidiisa ayaa isaguna lagu qiyaasaa in ay gaarayso 500 milyan oo ka dhigan nus bilyan iyadoo markaasi saddexdii madaxweyne ee Cameroon Kenya iyo waliba Rwanda ay u muuqato in ay dhinaca hantida isu soo dhaweynayaan amaba ay ka siman yihiin oo ay yihiin hogaamiye la sheegay amaba hogaamiyayaal la sheegay in ay haystaan nus bilyan lacag ah hogaamiyaha ku jira kaalinta 3aad ee madaxweynayaasha dalalka Afrika ugu taajirsan ayaa noqonaya Obiang Nguema Mbasogo oo dhashay sanadku markii uu ahaa 1942 waana madaxweynaha Equatorial Guinea waxa uu haystaa lacag lagu qiyaaso 600 milyan oo doolarka Mareykanka ah madaxweynahaasi ayaa ubad waxa uu ka haystaa hal isagoona hal xaas leh hogaamiyaha
kaalinta labaad ku jira ee ugu taajirsan qaaradda Afrika ayaa waxa uu noqonayaa madaxweyne Cali Bongo oo hogaamiya dalka Gabon. waxa uu dhashay 1959 waxa uuna leeyahay 4 caruur ah. hantidiisa ayaa lagu qiyaasaa in haatan ay gaarayso 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. madaxweyne Cali Bongo ayaa u muuqata hantidiisa in haatan hoos u dhac ku yimid maadaama sanadihii la soo dhaafay uu gaaray ilaa iyo 2 bilyan amaba 1 bilyan iyo bar, isagoo oo markaasi haatan sida rasmiga ah la shaaciyay inuu haysto 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. hogaamiyaha ugu taajirsan qaaradda Afrika ayaa waxa uu noqonayaa Mohamed V oo ah boqorka dalka Morocco, waxaana hantidiisa lagu qiyaasaa 5 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. waxa uu dhashay sanadku marka uu ahaa 1963. haatan waa hogaamiyaha ugu taajirsan qaaradda Afrika isagoo ah boqorka dalka Morocco, waxaana uu muuqdaa in 4 jibaar uu ka lacag badan yahay hogaamiyaha ku jira kaalinta labaad ee ka taliya dalka Gabon. وهاجاك داوديال برامجكي تحناها oo aynu ku soo qaadanaynay toddobaadkan madaxweynayaasha ugu taajirsan qaaradda Afrika ayaa inta inooga dhan anigoo Foos Ciidaha ayaa idin la socodsiinaysay tan iyo kulan dambe nabadgelyo.